مدحوينها الجمهورية الفدرالية مدحوينها دولة بنتلاند وحيانكيسة ودوليها برلمان كيسة وزيرنا كصعدة فدرالية إيا حلواننا فدرالية إيو بنتلاند oo barlamaanka iyo wasiirada gobolada Soomaaliyeed ee sharafta badan oo u horeeya boqor burhaan siyaasi oo Soomaaliyeed markii sharafta looga timi dowladaha aan saaxiibka nahay oo heer gobol sida dowladda Jabuuti dowladaha caalamka ka yimid oo aan saaxiibada nahay oo Chinaha iyo Talyaaniga aan ka xusi karo ciidamada qalabka kala duwan madaxweynihii hore ee Puntland ra'iisul wasaarayaashii hore علي محمد جيبي إيو عبد الولي شرك runtii dhammaan ka soo qaybgalayaasha sharafta badan oo bahda saxaafaddu oo maanta mataqaanaa Soomaaliya mataqaanaa yididiilo ku soo kordhisay كصوم الجلياش دمانتي وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وحن أمهات علينا هرت الكود هرب وحن بلينا شعب كرير بدلا هم بلي لنا هاي وحن بلينا جرون كان عالمي أو international airport وصاصو أي كهير جليا وحالنا هاي همبليا لا مركز لبعضنا وحنو همبلينا يا دولة فدرالية أو أنجعل هاي إلى كفاري بيسدو أنكو إذا صعد كقبلنا إيو صوماليا مدينتيبا إنه يقول استعمال الدونتو أو أي فتقة ككعب دونتو نوار رجية وعنو همبليها إلنا قودهان ومدى صوماليين وعن كلامو همبليها جيسك أفريكا إنه ويهاي قولسوه يتاي إيا أدونك حرير كيسا كلا جوان هديان همبليهاس إيا قوشاس أنت أصدق بحر waxaan kaloo rabaa inaan uga mahad celiyo dowladihii gacan ka geysay oo Talyaaniga iyo China ugu horeeyaan maxaa yeelay gacantaas waa gacan Soomaaliyeed ma ahan gacan Puntland kaliya la siiyay marka waxaan leeyahay mahad ayay idin hayaan shacbiga Soomaaliyeed waxaan kaloo rabaa Puntland inaan uga mahad celiyo dhibaatadii Yemen ka dhacday sida magaalada Boosaaso ay u soo dhaweysay ayna xilligaas adag uga soo saartay ma ilmaami doono meel kastoo ay joogto ummadda Soomaaliyeed maraakiibta halkan ku soo xiranaysay oo biyaha iyo timirta lala garab taagnaa intaas markaa halkaa uga baxo waxaan rabaa wax yar inaan ka idhaahdo mustaqbalka Soomaaliyeed iyo 2016 maadaama ay madaxda sare ay joogaan madaxdii federaalka iyo dowlad goboleedyadii oo Cabdiweli Cali Gaas agteeda fadhiya madaxweyne Xasan Sheekhna uu fadhiyo Soomaaliya
waxay ku ballantay 2012 in Soomaaliya qof iyo codkeena ay gaarayso aan lagu ballamo ummadda Soomaaliyeed taasay ku ballantay quraankana wuxuu leeyahay ilaahay wa uufuu bil ahdi in al ahda kaana mas'uula islaamnimadu waxa ay ku tiirsantaa ballantaanka kooda waxaan rabnaa marka in waxaan rajaynaynay inaan codayn doono inkastoo aan marmar arkayay Afghanistan oo suulasha dadka laga gooyaa markay codeeyaan waxaan isu diyaarinay meelaha khatarta in suulasha loo kaga gooyo ka codeeyo wax dhibaato male waa ummadaada oo aad u horseeyayso tilaab guuda inaad ku dhimatana dhibaato male marka dawladeeni mar dambe oo aan filahay waxay tahay qof iyo codkiis dhicima kariyay hada laakiin qof iyo codkiis dhicima karto waxay tusaysaa haddii hadalkaas la fasiro dawladdu inay qabiilka gudubto si kastaba arrintu aha 4.5 inuu halkaas u gudbo laakiin hal arrimaan ku soo gabagabeeya hooyada marka ay foolanayso oo fooshu ku adkaato hadda kululaysaa lagu duraa kululaysa dawladeenna marka haddii ay mataqaanaa dhiigu ku yaraada hadda shacbiga Soomaaliyeed la rabaa inay kululaysa ku duraan si waxaan rabnaa ay u dhasho waxaan rabnaa inay dhashaan rabnaa waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh